ayadoo dhakhtarnimo baranaysa ayay dartiisa kaga soo tagtay reerkeeda. waxaan warbixintan ku eegi doonaa qisada jacayl ee golayaha Liverpool Alisson Becker iyo xaaskiisa. Liverpool ayaa lacagihii ugu badnaa abid taariikhda kubadda cagta ee lagu soo iibsado goolahaye 62 milyan oo pound kala soo baxday Alisson Becker oo shabaqa u ilaalin jiray kooxda AS Roma ee dalka Talyaaniga. hase yeeshee kooxda Jurgen Klopp hal lagax ayay laba shimbir ku dileen waayo xaaska Alisson ee u soo raacday Anfield waa dhakhtarad heer sare ah. golyaha reer Brazil ayaa ku faanay inuu ka duwan yahay ciyaartooyda kale maadaama ay xaasaskoodu u badan yihiin model sameeya xayeysiinta dharka ama wax la mid ah. labada lamaane ayaa kulmay 2012 waxayna is guursadeen 2015 2016 ayayna dunidan ku soo dhaweeyeen gabadhooda curadda oo loo bixiyay Helena. Natalia iyo Alisson ayaa kulmay xilli uu golayaha la joogay nadiga Internazionale ee dalka Brazil waxayna ku soo biirtay noloshiisa iyadoo ku jirta waxbarasho. laakiin Alisson hal baxad lagu lasay kama dhigin furidda ay u sameysay gacalisadiisa wuxuuna ka caawiyay inay sii wadato waxbarashadeeda ilaa ay ka noqotay dhakhtarad heer sare ah. golyaha Liverpool oo ka sheekeynaya arrinkan ayaa yiri xaaskayga Natila waxay ka soo tagtay Brazil 5 bilood kadib markii ay qalin jibisay si ay aniga ila joogto wax badan ayayna iga dhigan tahay midda waan u rayaaqay inaan caawiyo ayada inta ay dhameysanaysay waxbarashadeeda jaamacadda. waxaan u maleynayaa inay midda iga dhigayso inaan ka yara duwanaado ciyaartooyda kale ee kubadda cagta. haddii aan si fiican dareemayn waxa fiican inaad la noolaato dhakhtar halkii aad la noolaan lahayd model dharka xayeysiisa. si kastaba Natila uma sahlaneyn go'aankay ugu soo guurtay Liverpool gaar ahaan maadaama ay waqtiga haysatay anug hal sano jira balse hadal ay ku tiri xaaska weeryahanka Roberto Firmino ee Larissa Pereira ayaa ku qancisay inay mid sahlan u noqon doonto inay saldhigato gobolka Merseyside ee dalka Ingiriiska oo ay ka dhisan tahay kooxda Liverpool.